حزب عصب oo loogu magac daray xisbiga shacabka ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Maxamed Xuseen Daacad wariye arteene Muqdisho ayaa warkan inoo soo diray. xisbigan cusub oo loogu magac daray xisbiga shacabka ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaana munaasabada ku dhawaaqista xisbigan cusub ka qayb galay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira siyaasiyiin iyo urur bulsho. Abdulqaadir Maxamed Cusmaan barnaamij oo ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabada daafurka xisbigan cusub isla markaana ka tirsan madaxda xisbiyada ee lagu casuumay munaasabadan ayaa wuxuu soo dhaweeyay daafurka xisbigan cusub. waxaan leeyahay waxaan u ballaninayaa xisbiga shacabka Soomaaliyeed. xisbiga shacabka Soomaaliyeed wuxuu wataa magac qiimo badan oo shacabka ah. hal xisbi oo weyn la soo saaro laba xisbi ay noqdaan saddex ka badan dalkeena ma aqbali karo. waxaan ka codsanayaa baarlamaanka Soomaaliya qaab kaloo lagu sii adkeyn karo xisbiyada inay xisbiya yar oo tayo iyo tiro leh oo murqo leh inay noqdaan. waxaan rabnaa xisbiga shacabka oo kale inaan ku faani karno tiradiisa la yiraahdo walaa wuxuu haystaa 100,000 qof. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga shacabka mudane Cawli Ciise Xasan ayaa ka hadlay ahmiyadda xisbigan cusub loo aasaasay. xisbiga shacabka Soomaaliyeed waa xisbi dhalinyaro ah sida la idin sheegay, waa xisbi isbedel doon ah, waa xisbi idinka yimid adinka, waa xisbi noqon doon hadduu Ilaah yiraa xisbi aad gacantiina ku maamushaan. waa xisbi marnaba aan order ku jirin iyo amar ku jirin ee consultation kaliya ka baxsho waxyaabo qabanaya. Abdulqaadir Jaamac Suleymaan oo ah gudoomiyaha xisbigan ayaa dhankiisa tilmaamay inay xooga saari doonaan sidii xisbigan oo fursad u siin lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada. inta qaranka shacabka lagu aamin lahaa waxaa lagu keeni karaa waxaa weeye in quluubta iyo kalgacalka shacabka la ogaado la farsiro qofka ay shacabku u gartaan ama u igmadaan inuu dalka liider ka noqdo codkooda ay ku soo saaraan. qofkaas sidii lagu keeni lahaa ayaa xisbiga loo taagan yahay inuu ka shaqeeyo. xisbiga shacabka Soomaaliyeed waxaa kale uu taagan yahay sidaan ognahay waddanka Soomaaliya waxaa dhibta ugu weyn ka taagan tahay waa dhanka sharciyada. waxaad ogtihiin dastuurka Soomaaliya intaasoo dowladda baa isbedelay ilaa hadda weli qalin kama bixin. sababta ugu bixi laayahayna runtii in la isweydiiyaa muhiima. waxaa sababtaas sababta magaalada waxaa weeye marka dastuur laga hadlayo ama dastuur la saxayo ama dastuur la ansixinayo ama sharci laga hadlayo number 1 waa in shacabku ay gacanta lagu hayaan. Maxamed Xuseen Axmed RTN Muqdisho.